dalkii dib ha u gocanaa muday xasuustaahu waxaad ka haysatayaa gaasiyo kabriid ku shida juxa hadda ka hor waxaa la yidhi ninkii juxal dhihi jiray islaantiisa waxay tiri guriga waa nugeeryahay markaasoo dameer soo gado kula xareeyey markaasoo dana sac soo gado kula xareeyey markaasay tii war dameerkan sacan maxaa waa dameerkana waa raranaysiin sacana waa maalinaysaa war anaga guri awl cariin u ahay naga bixi waayo maya len ka bixi maayo waa in kula jirayaan islaantii iyo carruurtii fidhahay waxay ku gorgortameen in dameerkii sicii laga bixiyo guriga cariirigana iska joogaan guriga noo balaaridii wixii waa iska dhaafeen fiiri madaxweynahan xilkiisa dhammaaday maamulkiisa hal wuxuu caan ku yahay ma garanaysaa mushkilo abuuraa anaa xaliyo ku dhaha haddane inaa igu ammaanto kaa rabaa war yaa abuura mushkilada gado dowladdii 4 sano la soo dhaafay joogtay dalkan fasaadka ay dadka bartay in laga celiyo wallahi waqti qaadanaysa waxay dadka bartay cunug walba in inta lala hadla la yiraahdo hebel soo cay madaxweynaha dowladda federaalka gurigiisa oo seexdo ilida waxaa ka fura subaxiina ka soo fura askari ajnabiga ka soo fura haddaa marka dadka masaakiinta dhalanteed u sheegto tiraahdo allahu akbar wadaniyiina nahay oo wax been dadka u sheegto walaalo waa laga daba imaana dastuurka wuxuu siinayaa 4 sano walbaba in doorasho dhacdo oo la isdoorto 4 sano waa xaqiiqo waa dhamaatay inuu yiraahdo waqtigeega waa dhamaaday hawshan dadkii ku habooneed ha loo gudbiyo waxaa mar walba la igu riixayo oo dad badan ay rabeen in extension la sameeyo oo 2 sano lagu sii daro dawladda anaa diidanay welina waa diidanahay qofka mas'uulka la dooranayo si sharci inuu xafiiska ku yimaado inta uu joogo xafiiskana inuu si sharci ku maamulo maalinta waqtigiisa dhamaadana si sharci inuu uga tago ama ku joogo aragtida farmaajo oo hogaamiyo waxay leedahay federaal ma ogoli 4 sano federaalka loo dagaalsanaa wax dastuur la yiraahdo ma aqoonsani nidaamkii dimuqraadiga qor isku dhiibka dalkan ku soo caanamaalay ma ogoli doorasho aan hubo on keligii qaadanayaan ogolahay 4 sano madaxweynahan arkay wadan ma maamulaynin yaa maamulayay xageesa wadankan uu ku socdaa 4 sano kadibna sharciyada maanta baarlamaan lagula hadlay iyo waxa la soo saaray waxay noqonaysaa Soomaaliyay dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeye ma aha 91 ma aha system iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo hogaanka dalka waa ambatay soo noqo cud ilaa rushdik meesha ku socoto waa qaldan tahay dalkaana waa dad jilcan ma qaadi karo maanta extension waa xaqiiqo dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin siyaasad ahaan uusan u qaadi karin bulsho ahaan uusan u qaadi karin dhinac walba haddii laga fiirsho uma qaadi karo